بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan bilaabayaa akhrinta qoraalkii hay'adaha amniga ay ka soo saareen dhacdadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. waxaan ku bilaabayaa hadalkayga. sida aad la socotaan, hay'adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dambiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal dambiyeedyo ama khiyaano qaran taas oo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dawladnimo ee Soomaaliya. waxaa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo ka soo horjeeda jiritaanka dawladnimada Soomaaliya. hay'adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay'adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 11kii iyo barkii habeenimo guri lagu tuhunsanaa in lagu abaabulo falal dambiyeedyo kor ku xusan ayaa markii ay hay'adaha amniga tageen gurigaas, muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga. guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay'adaha amniga. kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya. bacdama uu muwaadinkan diiday inuu u hoggaansamo awaamiirtii hay'adaha sharciga kalena hor yimid dagaal hubaysan, waxay ciidamadu ku guuleysteen in ay soo qabtaan isaga oo bad qaba. sidoo kale waxay hay'adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan. tallaabadaas hay'adaha amniga ay u mareen si waafaqsan shuruucda dalka iyadoo la fulinayo awaamiirtii hay'adaha sharciga. muwaadin walba waxaa waajib ku ah inuu u hoggaansamo sharciga, mana jirto cid ka sarreysa sharciga, kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xadgudub qaanuuneed iyo inuu ka dhasho fal dambiyeed. sidaas darteed shacbiga waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan hay'adaha amniga iyo fulinta sharciga, iyaga oo dawladda federaalka Soomaaliyeed ay damaanad qaadayso xuquuqda muwaadin kasta uu siiyey dastuurka iyo shuruucda dalka. muwaadinkan wuxuu helayaa baaris hufan, waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh, wuxuuna heli doonaa xukun cadaaladeed. ugu dambeyntii, shacbiga Soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa in ay kaalin ka qaataan amniga iyo nabadeynta, kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasillooni darro siyaasadeed iyo mid amni. muwaadin kasta waxaa waajib ka saaran yahay inuu danta guud ee dalka ka horumariyo danihiisa gaarka ah. waa mahadsantihiin.